ahaan oo markaan meesha joogay dalku waaba ila foolkumaynaa dharku adduunyada dookhayga maasha allah waayo yaa soo galay bismillah war yaa soo galay guriga habaqan maryanay waa anige haa xaaji mar baan carari gaadhee oo boodh weynide galabta dhismihii weynaaye aan kuu sheegayey ayaan suuligii u dhisaayey hee kii baanu shaqadiisii maanta nagu daba dheeraatayoo waabaan ku daalay shaqadan oo sawdiga weli xoogga ah xaaji daalkaad ka hadlaysaa waa maxay biyo qabowan cabbaysi biyuhu kaama fogo xaaji hoo sheekana waan kuu hayaa oo maxaya isug yaa balaan dharkan tusi xaaji alxamdulilaahi rabbilcaalamiin oo bacda maxaad ka safaqaysaa ka waran xaaji dharkan cusub mar walba waxaad igu odhan jirtay dharka buluugga ah waad ku soo baxdaaye waan arkaaye misaa lagaa siiyey ha ka welwelin carruurtiina dhar baan ugu soo iibiyey lacagtaydii maanta lacagtaadii haaye adiga miyaanu jaamac lacagtaadii yoomka ku siinba maanta waxaa ka baxoo cali baa maqaaxidii bunka igu sugayay dharaan kuwan ku beddeshayse waan ka xumahay xaaji dharba kuuma maydhin sawnigan miiska ku lug xidhan dhinacna aan carruurta dharkoodii cusbaa ku mashquulsanaa maalin oo dhan baan habaaskaydi ku jiraa dhar nadiifana ma helayo waa maxay sidaas sawnigan kuu sheegaya inaan yaro mashquul noqday waddadanaad fadhidiiyo dharkaad soo iibsanayso sow wakhti umaad helin dharkayga maydhistiisa ayaad wakhti u weyday isbeddel baan ka arkaay maad isqabatid cabdi oo waa maxay isbeddelkaad igu aragtay aniga bal weynu eegay halka ay ku dambayso oo halkay ku dambayn allabool weyna daaqadan bismillah bas baan buuxiyey ilaa roobkaaga noo keen waxaasoo dhas ugu naga yanaan lahaa iminka assalaamu calaykum yaasmiin saaka furitaankii dukaankaan la kowsaday calaykum assalaam meedo waa no saaka waan isla soo kallahnay kallahaadda bay ku jirtaayo soo inantaydii roonayd ma guursanayso dhowaan waa bashaarade xilli wanaagsanna waad ii timin furaashyo cusub keenay inantaydaaba shalay kuu timi oo hurdada qadadiiyo furaashyadanba dhan walba ka eegtay waxay ka heshay soo ma jiraan dooqeeda ay ii soo sheegtay baan ku socday eeday bal dukaanka dhex maroo dooqeeda soo hel maasha allah yaasmiinay dukaankaaga wuu kuu camiran yahay eeg halkaa shishe waxaa yaalla sariirihii hurdadoo kala duwan geestaana waxaa yaalla fadhigiiyo 4 nooca maasha allah halkan bal soo eeg kuraasidii qadadoo 3 nooca yaalla miiska qadada fadhiga iyo jiifkan hurdiga ah waa kuwa inantaydu ii soo tilmaantay laakiin maxaa eedo waxay ii soo sheegtay kuwa ka yara waaweyn midabkuna uu dahabi yahay kuwa hadday doonayso dibaddaan uga dalbayaa 2 isbuuc bay ku imaanayaan 2 isbuuc waanu sugi karnaaye noo dalabeedo waa yahay daahyada miyaad ka maarantaa alla maya daahyadu waa dahabi kuwan daaqadaha kugu xidhan oo kale halkan ma ku haysaa kuwan sow maaha haa dahyadu waa kuwan laakiin hurdada fadhiga iyo cuntada waad ii dalbaysaa eedo lacagta bal ka warran 8 waa 3 kun eedo 2 kun baa igu dhiman soo maaha markay alaabtu timaado ayaan bixinayaa qiimo dhimista aad ii samaysayna waad ku mahadsan tahay adaa mudan eedo anna waxaan ku dadaalaya in alaabta caruusadu 2 isbuuc nagu soo gaadho haa taasaa noogu darane ballanta dalabka noo adkee insha allah markay soo gaadhaba telefoonkan kaala soo hadli eedo dumar badan oo ila saaxiiba lacagna haysta dukaankaagana danaynaya baan kugu soo xidhi doonaa insha allah nabada eedo mahadsanid nabaday hooyo may maqlaysaa hooyo waan ku maqlaa hooyo maanta war farxad laan kuu haya albaabkanaan xidhmaynba alla hooya telefoon ku hadlaysaa yaasmiin hooyo waa ducaysan tahay ganacsi cajiiba baad samaysa alxamdulilah hooyo sidaa baan rajaynaya inaan alaabtan gadaayo oo dhan la wada iibsado dalabkuna sidaa u socdo insha allah hooyo insha allah waxaabaad mooddaa hooyo in xanuunkiina iga soo yaraanaye waari faysal hooyo walaashaa yaasmiin ma maqlaysa alaabtii ugu badnayd ayay dad u dalabta weliba qaar badanina way u iibsadeen hooya taasi hay joogtee waxaan doonayaa inaan guursado inantii quruxda badnayd aan kuu sheegayay hooyo inanta magaceeda horta muxuu ahaa inanta magaceeda waxaa la yidhaa hodan way qurux badan tahay
hooyo malaa quruxdaasiba waa ta lagaa raacay way qurux badan tahay way qurux badan tahay unbaad leedahay hooyo goormaad inanta noo keenaysaad annagana soo baraysa aanu aragnay horta aan kuu sii sheegay hudan ma doonayso inay u shaqayso sida walaasha yaasmiin oo kale yaa oo maba doonaysa inay shaqaba qabato shaqa way qabanaysaa ee waxay doonaysaa inay hooyo noqoto oo ay guriga joogto waariyaae horta inanta halkeed ku barata saaxiibkay bay jaamacadda wada dhigtaanoo xaggaasaan ku bartay waxaan ku idhi dhaqaale laftiisa ma ka fikirtay marna inaad noqoto nin reer dhaqan kara markaan qalinjabiye oo aan helo shahaadadeeda jaamacadda iyadaa iga caawin doonta inaan shaqo helo insha allah hooyo horta anigu waan jecelahay inaad guursato ma garatay laakiin ma intaanad waxbarashadaada dhammaysaninbaa haa hooyo walaasha yaasmiin baan doonayaa inay iga caawiso kharashaadka arooska oo yaasmiin baad isku hadlaysay soo maaha haa sow alaab badan uma iibsamin hooyo ma waanan shirka ganacsatadu bilaamaynin hedha meeshii dadku guux badanaa ikraan hooyo maantaa kuugu horraysay weli dad baan iman waayahee ma waad aragtay qorshahayga ganacsi ee kale qorshahaagii ganacsi ee dambe aad buu uga horumarsanaa kii hore aad ii keentay aad baan hooyo kaaga mahad celinaya mar haddaad qirtayn qorshahaygii dambe uu fiicna ma waanan dukaankaygii furan karahayn ikraan hooyo mar haddii maanta dumarkii meesha jooga ay ka heleen dharkanaad xidhan tahay waxaynu tegi doonnaa baankii si aynu u soo qaadanno deyntii aynu ku bilaabi lahayn hooyo waad mahadsan tahay runtii waad iga farxisay laakiin maba islehi ganacsigaagu wuu furmahaya maasha allah si weyn baad u soo camirteen shirka bal warrama waad mahadsan tahay jaamac aan ku baray inantayda ikraan waa si wanaagsan soo dhowow adeer jaamac baa laygu yeedhaa waan dhowahay adeerow barasho wacan isir ma ganacsataad ka dhigi rabtaa inanta iyadaaba jaamacadda ku soo barata farshaxanka dharxidhashada dumarka waxaabaad ka garataa quruxda dharka iyo qaabka ay u xidhan tahay adeer soo dhowow mar kale mahadsanid adna maanta ikraan waxay baranaysay ganacsatada anaaba ugu yeedhay shirkan rugta ganacsiga waa dhiigga cusub ee ganacsiga oo fikrado iyo horumar inugu soo biirin karaa adeerow anaaba maanta doonaya inaan ka faa'iidaysto dadka khibradaha ganacsiga leh jaamco ikraan imika waxa ay qorshaynaysaa inay samayso dukaan lagu iibiyo dharka farshaxamaysan ee dumarka anna waan hubaa inay inanteedu ka heli lahayd quruxda dharkan aad samayso insha allah hooyo ikraan ma soo eegaysaa qolalkan lagu soo bandhigay wax soo saarka ganacsiga eeg inantaadu way ka soo noqotay qolkii bandhigyadu ka socdeen inani waa hooyadeed way dhaahdaa weli waa dhallinyaro waxaanse ku kalsoonahay inay maalin u noqon doonto ganacsato weyn oo magac leh fiiri hooyo haween badan oo qolalkan ganacsi ku soo bandhigahaayey baa i soo siiyey kaarka xiriirkooda waa halkaad ganacsatada ka baran lahayd qaar badan baa markay dharkayga arkeen dalabi weydiistay way caddahay inay doonayeen inay hawlo badan kaala hadlaan anigu waan sii soconayaa ee nabade laakiin aniga weli ma fahmin ganacsigaagu wuxuu yahay mar kaleynu ka sheekaysan doonaaye hoo xidhiirkaygu halkan buu ku qoran yahay day hooye kaarkiisa waxaa ku qoran jaamac xasan waa ninka iskale shirkadaha ugu waaweyn dhismaha uguna caansan haa waa sidaa hooyo day hooyoy intaan idinka maqnaa muddo dheer baa wada fadhideene maxaa ka wada hadlayseen caliyow cali waar way kane maqaaxidu buuq badna halkaas baan kaa daydayiye alla waar cabdi waa maxay dharkan uskagii waar waa sidaan shaqada kaga soo baxaya iyo warran miyaanad soo marin gurigaagii war gabadhan markii aan helay ayaan nastayba war qoftan dharkaaga uskagiisii arki weyday waad leeda waan ku nastay iminka carruurteedii iyo shaqadeedii way ku filan tahay lacag ku filanna waabay samaysaa malaha cabdow xaas kalaad ka hadlaysa waar maryam baan ka hadlaya uskakaaga iska hayso ka warra carruurta xaalkooda waa adigan labadiinniba ka dhex maqane ma dayacnay iyagaaba faa'iiday waanay faraxsan yihiin haddaba ninka meesha ku dayacan inaad adiga tahay may sog tahay cabdow aabbo waan kaa soo daahay maxaad cabbitaan wacan weysaa aabbo aabbo wax badan kuma sugahayne iska warran daal aad u fara badan baa mar kasta kaa muuqdee aabbo daal kastoo aan qabo waxaan ku hilmaamaa la kulankaaga farxadna waan dareemaa aniga ikraanaya aabbo waxaan jecelahay inaad meel kore gaadho hedha aabbo weli waxaan fahmi leeyahay sababtaad aniga ganacsigayga ugu faraxsan tahay ee hooyadii inay ganacsato aad u dhibsanahayso aabbo waxaa igu adkaatay xaas da'yar oo ganacsato ah inaan la noolaado laakiin anigu hadda waxaan la shaqeeyaa shirkadda aan waardiyaha ka ahay waana fiicanahay aabbe
barta weli ma ku fikiraysaa hooyaday haa labadeennaba midna ma guursan ilaa muddo 10 sano ah ayaa ka soo wareegay kala teginnii midda kale aabbo hooyadaa ma og tahay inaan aniyo adig kulanno maya aabe hooyo waan ka qariyay waana sir labadeena keli inooga dhaxaysa oo hadday ogaato maxay ku dhihi kartaa aabba haddeer wax waliba way isbedeleen ee la soco maxaad ka wadaane